madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Shilaye iyo wafdi ballaaran oo ka kooban xubno wasiirada taliyaasha ciidamada qaranka iyo mas'uuliyiin kala duwan ayaa maanta si heersare ah loogu soo dhaweeyay magaalada Barca ee xarunta gobolka Togdheer. soo dhaweyntan madaxweynaha ayaa waxa ka qayb qaatay barasaabka gobolka Togdheer Master Xamarji duqa degmada Barca Ustaad Maxamed Muraad taliyaha qaybta bilayska agaasimayaasha wasaaradaha gobolka ardayda magaalada Barca shaqaalaha hay'adaha kala duwan ee ka howlgala gobolka Togdheer. madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisa ayaa waxa looga hortagay degmada Sheekh oo dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Barca waxaana soo galbiyay madaxweynaha kumanaan gaadiid iyo shicib ah oo ay ka dhex muuqdeen gudoomiyaasha ururada gobolka iyo mas'uuliyiinta gobolka Togdheer. xubnaha iyo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka ee noo xafiiskiisa gobolka Togdheer marwadeeqa weedaraya iyana ka qayb qaadanaysay soo dhaweynta madaxweynaha waxaana loo soo galbiyay dhanka gudaha magaalada Barca oo ay dhinacyada laamiyada ay tubnaayeen dhalinyaradu tiro badan ay u badnaayeen ardayda dhigata dugsiyada kala duwan ee gobolka Togdheer oo ku dhawaaqay hadallo qiiro leh oo ay ku soo dhaweynayeen madaxweynahooda. hadallo mahadnaq ah oo kooban ayuu halkaasi madaxweynuhu uga soo jeediyay kumanaan shacab ah oo ku sugayay afaafka hore ee guriga martida gobolka Togdheer isagoo uga mahadnaqay sida ballaaran ay ugu soo dhaweeyeen gobolka Togdheer isagoo sidoo kale salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka ee gobolka Togdheer. safarkani madaxweyne Shilaye oo ku yimi gobolka Togdheer oo aan ahayn kii u horeeyay ayaa waxa la filayaa inuu ugu sii gudbo deegaano kale oo ka tirsan gobolkani. sidoo kale waxaa madaxweynaha si diiran loogu soo dhaweeyay deegaanada Sheekh Qoyta iyo deegaano kale oo ku teedsan wadada laamiga ah ee isku xidha gobolada Togdheer iyo Saaxil. wixii warar ee ka soo kordhay maashahan madaxweyne Shilaye oo ku yimi gobolka Togdheer iyo waliba kulamada iyo safarada kala gaarka ah oo ku aadi doono qaybaha kala duwan oo koobsado gobolka Togdheer ayaan idinku soo gudbin doonaa wararkayga dambe. waa Axmed Hanad Gurey Baqaye wararka Samsa TV gobolka Togdheer.